Maanqaad media haddii ay ku dhaafaan muuqaalada meesha gaduudan subscribe si sulkadaada ku sii karin farta aayar jag ku sii sidoo kale gambaleelka ee dhawaaqaya jagsi si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro muuqaalada iyo barnaamijyada xiisaha badan wanaagsan ku soo dhawaada Maanqaad media qodobada caalamkan idin haynana waxa kamida Sacuudi Carabiya waxay sheegaysaa in laba markab oo shidaal u waday lagu weeraray meel ku dhow dekada Fujairah ee dalka isku tagay Imaaraadka Carabta howlgal ciidamada Nigeria ay ka fuliyeen gobolka Borno afar ka tirsan kooxda Boko Haram ayaa lagu dilay isbuuca soo socda waxa lagu wadaa in Brussels ay midowga Yurub shir kaga yeeshaan dagaalka argagixisada joogta wadamada Saxaraha ka hooseeya ee qaaradan Afrika nin Australia oo dhashay oo xaaskiisa kala hor dilayna maxkamad ayaa xukun ku riday madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas Abu Maasim waxa uu kulan la qaadan doonaa sida la qorsheeyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin maxay ka wada hadlayaan warbixinayaan idinkaga haya iyo maxkamad Masar ku taala oo xukun ku riday laba nin oo la sheegay in dhawaan ay weerareen kaniisad ku taala wadankaasi qaybaha dambana waxa daawan doontaan mid kamid ah muuqaalada aan ugu talagalnay ee saameynta leh in aan la wadaagno daawadayaasheena aqliga wacane karaamo watiyo wakar cilmi loo waqtigu la socda anigu xasan xayi Cabdullaahi ayaa soo saaray idinlana socodsiinaya ku soo dhawaada Maanqaad media iyo caalamka Maanqaad media haddii ay ku dhaafaan muuqaalada meesha gaduudan subscribe si sulkadaada ku sii karin farta aayar jag ku sii sidoo kale gambaleelka ee dhawaaqaya jagsi si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro muuqaalada iyo barnaamijyada xiisaha badan waa isniin taariikhdan ay ku beegan tahay 13 bisha shanaad ee May 2019 ku soo dhawaada Maanqaad media iyo caalamka qodobka ugu horeeya ayaa waxa uu yahay Sacuudi Carabiya waxa ay sheegtay in la weeraray laba kamid ah maraakiibteeda shidaalka meel ku dhow dekada Fujairah ee wadanka isku taga Imaaraadka Carabta Khalid Al-Falih oo u hadlay wasaaradda macdanta iyo tamarta ee dalka Sacuudiga ayaa war-saxaafadeed maanta isniin uu soo saaray ku sheegay weerarkaas inkastoo qasaare uusan geysan sida warka uu yiri laakiin dhaawac iyo dhibaatooyin burbur ah uu soo gaarsiiyay labada markab weerarkaasi maalin kadib ayaa noqonaysaa markii la arkay qiiq iyo waliba qaraxyo laga maqlay meel ku dhow dekada Fujairah ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta inkastoo ay dawladda Imaaraadka ay warkaas markii hore beenisay Iran ayaa lagu eedeeyay weerarkaas in iyagu ay ka dambeeyeen Mareykankana waxa ay sheegeen in ay fal aan wanaagsanayn oo anshax darro ah ay ku dhaqmayso Iran taas oo laba jibaaraysa wadamada gobolka iyo waliba Iran in xiisadooda ay sii cakirnaato wali waxaad naga daawanaysaan Maanqaad media bal markana midowga Yurub ayaa shir waxay ku yeelanayaan isbuuca soo aadan magaalada Brussels ee caasimadda wadanka Belgium taas oo la filayo in xubnaha midowga Yurub ay wasiirada arrimaha dibadda kaga hadlaan dagaalka argagixisada lala galay wadamada Saxaraha ka hooseeya ee qaaradan Afrika sargaal ka tirsan midowga Yurub ayaa waxa uu jimcihii 10kii bishan ugu sheegay wariyaasha magaalada Brussels inuu dhici doono kulan la doonayo sidii wada xaajood dhab ah looga gali lahaa oo wasiirada arrimaha dibadda ay isaga imanayaan dagaalka kooxaha jihadistayaasha ah ee wadamada Saxaraha ka hooseeya ee Afrika deegaanada ay ka joogaan lagula dagaalami lahaa xididasiibidooda ayaa ka shaqayn doonaan oo falsafada iyo waliba qaabka ugu macquulsan ee loo wajahayo looga hadli doonaa shirkaasi kooxaha ka dagaalamaya wadamada Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania iyo Niger ayaa kamid ah la yiri iyadoo argagixisadu ilaa 2014 ay laba jibaarmayeen G5 ka wadamada la isku yiraahdo ama G5
ayaana la sheegay in kulankaas uu si gaar ah iyaga u dhex marayo iyadoona wasiirada arrimaha dibadda ee midowda Yurub ee shanta ah ay doonayaan inay war ka soo saaraan shirkaasi. markana Nigeria, ciidamada dawladda Nigeria ayaa waxay sheegeen 4 ka tirsan maleeshiyada kooxda Boko Haram ee argagixisada ah in lagu dilay howlgal laga fuliyay gobolka Borno xaafada kamida. militariga waxay xaqiijiyeen in weerarkaas oo xaddii shalay dhacay lagu beertilmaameysaday 4 ka tirsan dagaalyahanada jihadiistayaasha ay sheegaan in ay yihiin afayeen u hadlay ciidamada militariga ee dalka Nigeria oo la yiraahdo Colonel Sagir Musa ayaa sheegay in ciidamada ay ku guuleysteen howlgalkaasi sidii loogu talagalana uu ku soo dhamaaday. wakaaladda wararka Nigeria u faafisay Naan magaceeda loo soo gaabiyo ayaa magaalada Abuja war ay ka soo saartay waxa ay ku sheegtay in howlgalka ayaa laga fuliyay xaafadaha ay ka mid yihiin Surdawala, Ranwa, Baladayo, Sabon Gari iyo waliba Shetemeri. dhammaan xaafadahan waxay ka tirsan yihiin gobolka Borno. maxkamad ku taala wadanka Australia ayaa waxa ay xukun ku riday nin la sheegay inuu xaaskiisa dilay kaasoo xabsi garka loo geliyay waliba racfaan inuu ka qaadan karo ayaana loo ogolaaday baa la yiri. maxkamadda ayaa dhageysatay eedda loo soo jeediyay ninkan waxaana ugu dambeyntii ay keentay baa la yiri in xukunkaas uu wajaho. qareenada u doodayay gacan ku dhigilaha waxa ay sheegeen in maxkamadda ay dhowr cadeymo soo bandhigeen inuusan ku talagal u dilin, laakiin dacwada ogayaasha waxa ay sheegeen in gacan ku dhigilaha gar iyo gardaraba xukunka ku dhacay ay tahay mid loo baahnaa maadaama uu xaaskiisii uu dunida dhaafiyey. xaaskiisa ayaa lagu magacaabi jiray Karen Ristefiski, isagana waxa la yiraahdaa Borse Ristefiski. 55 sano jirkan Ristefiski ayaana la sheegay in 6 sano ilaa 9 sano inta u dhaxaysa in xabsigaas lagu xukumay. maxkamadda waxay sheegtay in muddo kooban racfaan ay u ogolaadeen in uu Ristefiski uu ku qaadan karo. dadka qaar ayaa waxay sheegeen inuu mudnaa ninkani in 20 sano garka loo geliyo iyadoo gabar uu dhalay oo Sara la yiraahdo ay goobta ku sugnayd. 27 sano jir ay xaaskiisa ahayd Ristefiski markii uu dilayay. qaybaha dhexe ee Maanqaad Media ayaa daawanaysaan. murashaxii madaxweynaha wadanka Belarus ayaa waxa uu iska dhiibay wadankaasi waliba Ruushka kadib markii uu ku hungoobay doorashada madaxtinimada dalkaasi. ninkan ayaa lagu magacaabaa Andrei Sanikov. sawir la arkay ayaa muujinaya in uu wadanka Ruushka tagay isla markaana magangeli ahaan uu dalkaasi iska dhiibay. Alexander Lukashenko ayaana sidaas oo kale 2010 ka cararay wadanka Belarus. warbixin lagu daabacay emergingeurope.com ayaa waxa ay sheegaysaa in nidaamka guud ee Belarus uu yahay mid tixgelin aan siinin murashaxiinta xilliyada ay wadanka joogaan oo mansabka iyo habmaamuus gaar ah aan lagu qadarinin. waana mid keentay Mr. Sanikov oo la rumaysan yahay inuu dawladda mucaarad ku ah iska dhiibo dhinaca Ruushka. waa hagaaga Maanqaad Media ayaad naga daawanaysaan. qaybaha ugu dambeeya ayaan isla soo gaarnay goordhown muuqaalka xiisaha lahaa ayaa nagu soo wajahan, balse dawladda Sweden ayaa soo bandhigtay in mar kale ay doonayso kiiska kufsiga la xiriira ee loo haysto Julian Assange ee eedda ahayd inuu kufsiga sameeyay dib loo ambaqaado. war ka soo baxay dawladda Sweden ayaana sidaas lagu sheegay maanta Isniina iyadoona shir jaraa'id ay qabatay ku-xigeenka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Sweden, taas oo la leeyahay waxaa lagu cadeyn doonaa baa la yiri oo dib kiiskaas la rabo baaritaanada la xiriira in loo ambaqaado.
shir jaraa'id ay ku qabatay magaalada Stockholm haweeneyda la yiraahdo Eva Marie Persson ayaa waxay sheegtay in haddii ay ku cadaato dambigaas uu ciqaabtiisa mudan karo. aasaasaha shabkadda Wikileaks ee siraha faafisa ayaa la qabtay bil ka hor xilli uu ka ambabaxayay safaaradda Ecuador uu ku leeyahay magaalada London ee caasimadda waddanka Ingiriiska. waa hagaaga daawadayaal bal markana waxaan idinla wadaagayaa muuqaal xiise leh. waa nin inta yimid goob carwo ah inuu wax iibsado haddana damac uu ka galay haweeney carwada joogta. kaaga darane xoogaa ereyaba isku tutuureen. waxa dhacday kadib in ereye macmacaan oo jilicsan ay haweeneydii ku tiraado. deetana markii dambe wuxuusan filanayn uu la kulmo. niqaab ayay wadataa amiinna shareer qofka sida uu yaqaano. waa mid ka mid a waddamada carabta. gacmaha golofis ayaa ugu jira. xijaab iyo weliba dhar adag ayaa ay wadataa. barafuun iyo maxaan kaa iibiyaa iyo ereye kalaa la yidhi. waa uu soo jilcay weliba oo damac uu ka galay haweeneydaas bal inuu haasaawo iyo shukaansi la galo. balse markii dambe ayaa ereyada uu dib u xasuustay oo haddana ay ku tiri ereye uu yaqaano. xaaskiisa ayaana ay noqotay. markii dambe ina shareerka ayay kor iskaga qaadaysaa oo uu leeyahay war wejiga qarso iyo ereye kale. marka damaca qaarkiis dhibaatooyinkaas ayaa uu leeyahay ee nala daawada. ممكن توريني البرفانات؟ والله تحت امرك. المجموعه اللي ورايا دي كلها جديده وان شاء الله تعجبك. اختار اللي يعجبك منها. طيب انت ترشح لي ايه؟ والله على حسب المناسبه اللي حضرتك هتستخدمي فيها. عظيم يا رب. هي دي اللي انت مجربها مع مراتك؟ ده على كده مراتك دي ما عندهاش لا ذوق ولا احساس. لا حول ولا قوه الا بالله. لازمته ايه بس الكلام ده يا ست؟ انا مراتي ذوقها زي الفل وست الستات. يا حبيبي يا حسين. اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا وليه في ايه؟ ما تخافش يا حبيبي. انا هدى. غطي انت اتجننتي يا هدى. عامله لي كمين بتمتحنيني. ما شاء الله لا قوة الا بالله يا حبيبي. اخدت 10 على 10. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. حبك بورس و10. waa hagaag waxaan rajaynayaa dad badan in ay muuqaalkaasi si fiican uga bogteen. gudahaan daawadayaal intaas ku soo gabagabeynayna caalamkii iyo maanqaad. anigoo xasan xayi cabdullaahi ayaa soo jeedinayay soona saaray inta aan isku arkayna mar kale. sidaas iyo nabadgelyo. caqliga wacane karaamo watiyo wax kara cilmi loo waqtigu la socda. Maanqaad media haddii ay ku dhaafaan muuqaalada meesha guduudan subscribe si sulkadaada ku sii karin farta aayar jag ku sii. sidoo kale gambaleelka ee dhawaaqaya jagsi si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro muuqaalada iyo barnaamijyada xiisaha badan.